shan calaamadood oo digniin kansar ah. Ha iska indhitin calaamadahan. Jirkeena waxaa ku dhacay isbeddelo joogto ah, haba ahaatee inaad ka taxadirto oo aad iska ilaaliso isbeddel aadan garanayn oo ku yimaada jirkaaga. Waa daruuri sidoo kale noloshaada oo aad badbaadisay weeye. Waa inaad dareenka u nuglaysaa si aad u ogaato wax walba oo kusoo kordha jirka. Haddaad ogaato calaamadahan, waxaa awoodaysaa inaad iska daaweyso xaaladaha qaar ama aad ka taxadirto inuu jirku kusii faafo, sida kansarka markuu cusub yahay jirka ugu faafan kaaga dhaca. Tani waa caddaynta koowaad, taas oo muujinaysa inaad la daalaa-dhacayso kansarka, khaasatan midka naasaha iyo sambabada. Miisaankaaga oo sabab-la'aan hoos u dhaca waxay dhacdaa marka kansarka weeraro caqabadeeyana shaqada beerka. Sidoo kale waxaa laga yaabaa mid ka mid ah calaamadaha hore ee muujinaya kansarka xiidmaha ama dheefshiidka. Isbeddel caloosha ku yimaada. Isbeddel ku yimaada caloosha oo u shaqaynayn sida caadiga ahayd, taas oo kugu dheeraata muddo bil ka badan, waa calaamad cad oo kansarka caloosha ah. Liqitaanka oo kugu adkaada. Haddaad ogaato inay dhib kugu hayso dejinta iyo liqitaanka cunnada, mise xanuun kugu hayso ama dhuunta ku gobanayso markaad istiraahdo cunnada liq, waxaa laga yaabaa inay ku tilaan u tahay kansarka dhuunta ama midka sambabada. Qandho ama infection. Lacalla haddii aad la halgamayso qandho joogto ah ama qandho kugu dheeraatay, waxaa laga yaabaa inaad ku jidho xaalad kansar sida lymphoma. Cidiyaha oo isbeddela. Cidiyaha sidoo kale waxay ku tusayaan in jirkaaga isbeddel ku jiro. Sidaa darteed, haddaad ogaatid in cidiyahaaga isbeddelayaan midabkooda, waxaa laga yaabaa inay tahay astaan cad oo muujinaysa qaybo ka mid ah kansarka sida kansarka maqaarka iyo beerka.